waxaa maanta garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo ka furmay tartan lagu tartamayo koob loogu magac daray isdhexgalka bulshada kaas oo loogu talagalay Soomaalida qaxootiga ku ahaa dalka dibadiisa ee haatan dib ugu soo laabtay dalka iyo bulshada inteeda kale. Tartanka koobkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka CBH iyo guddiga Olombikada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda isboortiga ee dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gacan ka helaya hay'adda DRC. Munaasabadda furitaanka koobkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka isboortiga ee dhalinyarada Cabdullaahi Fanax iyo ku-xigeenkiisa kusimaha gudoomiyaha guddiga Olombikada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Xirow iyo xubno ka socday hay'adda CBH oo uu ka mid yahay Ali Maxamed Aadan Ali Yang iyo marti sharaf kale. intii ciyaartu socotay ayaa waxaa garoonka kubadda cagta aan kula kulannay madaxa hay'adda CBH Ali Yang oo isagu ka mid ahaa soo qabanqaabiyaasha tartankan iyo waliba kusimaha gudoomiyaha Olombikada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Xirow waxayna ka warbixiyeen tartanka iyo ujeedada loo qabtay. isdhexgalsho ka saabsan ujeedaduna waa soo muddaas hadda naqatii la qabsada wadanka xaaladiis iyo haan oo degan fikrado oo qaxootiga oo dadku iyo faa'iideysan sadartii ama dhignay koob oo koobkaas oo macna oo dhiirigeliyay CBH iyo wasaaradda isboortiga iyo guddiga Olombikada Koonfur Galbeed wala farxa oo bulshadana oo dan aragooy tanbeen maleeyahay ciyaar oo raadi iyo walaal ka sheegno oo dadkii markii dheela jirta kooyaan taasna ma aha fahanka oo bulshada fahmeen nabadda faa'iido yeelata haddii nabadan jirneena ma helo nolol iyo nabadna macna iskirinta meel horumarsiyay marka hore nabad kadib nolol inta la helo ma sheegay dadka oo jeeda gobolada Koonfur Galbeed intii oo masiirka goboladiyo kaalintii ka qaadaan dhaqaale iyo fikrad waxaan oo fursad ka faa'iideysaa oo may bilaabo doonaa 21 November tartan goboleed oo Koonfur Galbeed ee goboladaas oo macnaha gobolada doona Baydhabo meesha ka qasday intii kuleen dhaqaale iyo maskaxiyan dadka baahan dadka jaalidoon oo maqan iyo dadka oo wadanka gudaasha joogo iyo shirkado waana mahadsantahay. iyo isdhexgalka bulshada oo reer deegaanka iyo dadkii dibaankanaga dalka Yemen ku kooyan ama Kenya ku kooyan ama barakacayaashii meelo kale ku kooyaade oo la dhawaayahay dadkii oo leestahay la dhawaayahay dadkii muhiimka ahay iyo dadkii meel ay leestahay isdhexgalsho ya meel ay soo tartan ka talagalay إن شاء الله سديد كوحد يوكو قيب هذا دونا وانا نيك اوت يو كوحدي هالمر لو كروي معنا جلاس ويران بدن شنبو القف يا داوود هايتن او برنامجكم ايد فرحسن هدفكم ويبو اني لدرينسي دادكا يعني اهميه استحقالك ودا نولاشا لما كوحد كفري شيء lamada kooxood la furay may buu ahaa kooxda horseed iyo kooxda CBH yalla ka bilaabay koobkan isdhexgalka bulshada oo ay ku tartamayaan ilaa 8 naadi ayaa waxaa maanta
tartankaasi ciyaaraha lagu furay laba kooxood oo kala ah kooxda Horseed iyo kooxda Seabridge iyadoo ciyaartu ahayd mid xiiso badan ayaa waxa ay labada kooxood isdhaafi waayeen barbardhac 1-1 tartanka oo ahaa mid naadigiiba hal mar ciyaaro ama loo yaqaano net out ayaa waxa lagu kala baxay rigoorayaal oo markaasi ciyaartu ay ku dhamaatay 5-3 oo ay ku badisay kooxda Horseed hase yeeshee tartanka ayaa lagu wadaa in labadii kooxood ee iyagu gala kaalimaha koowaad iyo labaad la abaalmarin doono. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.